waxaan ogaan doonaa bukaanada dhawaan isticmaalay daawooyinka shirkadda tennis ku bogsooday ilaahayna uu daawada ugu daray waxa la jooga mid kamid ah bukaanadaasi oo aan la hadli doono marka ugu horeyso adoo magacaaga ku bilaabaya daawooyinka shirkadda tennis xilliga isticmaashay marka hore magacayga hadaan ku bilaabo magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Aadan waa double Aadan daawooyinkan shirkadda tennis waxaan isticmaalay bishii afraad sanadkan aan ku guda jirno ayaan bilaabay waxa lagu yiri fursad caafimaad baan ku haynaa sidii aan ku soo raacay muddo la dhahayay niyow xanuun aad u daran baan qabay oo xitaa Saudi Arabia daaweyn aan uga soo qaatay oo aan ka bogsoon waayay oo Soomaaliya gudaheeda Turkidan iyo Masaarida hataa daaweyn badan aan ka isticmaalay oo muddo badan aan ka isticmaalay xanuunkaas ilaa iyo muddo wuxuu ila soo jiray adiga muddo 3 sano iyo bar ayaan dhibaatadaas haysay waa gartay xanuunkaas maxaa la magaciisa xanuunkaasi wuxuu ahaa awood xagga taranka ayaa ogaa iga yaraatay anoo 20 jir ah ayaa ogaa dhinac awoodii tarankan waayay marka qofka ninka ragana hadii dhinacaas laga galo waad ogtiin sida badan waa isdhiibaa hadaba meelo badan baan dawooyinka isticmaalay dawooyinka aan u waday oo meelo badan u isticmaalay nimbuko wax la yiri boqol ku talis sidii baa igu dhacday ano dawooyinkii isticmaalayo oo wada oo chemicalka aha magaalada aan ka isticmaali jiray markii dambe company-gan tennis baa la ii sheegay in dawooyin oo herbal ah oo ka shaqeeyo oo keeno oo waliba iibka tooska ah ku yimaada oo aan gacan kala soo marin daawooyinka shirkadda tennis oo kale imisa bilood isticmaalaysa waxaan isticmaalayay 3 bilood boo daktarka ii qoray wuxuu yiri dawooyinkan waa herbal sidaan ku sheegnaa oo isticmaalaysa dawooyinkii kale oo kale la mid ma ahan dawooyinkan qaabkaas oo isticmaalayso uu yiri dawooyinkii marka bishii ugu horeysay waan iibsiday haddaan iibsiday dawooyinkii baa sidii waxa ugu darneed tan aan la yaabka badnaa daawo biyo qanda lagu isticmaalay shirkadan ka hor ma arkin dawooyinkan biyo loo karkariyaa biyo yar oo shimbilisa ayagoo aan wili biyihii oo biyo ku gubayna aan ahayn oo shimbilis ah ayaa lagu isticmaalaa dawooyinkan hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysaa ma sha Allah hadda waxaan dareemayaa caafimaadkayga waa 100% saddexdaas bilood markaan isticmaalay 2 bilood ka mid ah markaan dawooyinkan isticmaalayna ganacsiga baa la ii bandhigay oo marka hore markaan imaanayay warbixin kooban baa ganacsiga laga siiyay ganacsigan waxa la yiri waa health and wealth caafimaad iyo hanti labadaba waa ka kaafin doona xanuunada aad ka cabnaysan waad ka dawoobi doontaa hantina waad ka heli doontaa waad ku caafimaad doontaa baa lagu yiri markaas aniga hanti iyo waxa la dhihi jiray Soomaaliya waxa kuma maahda nin meel u cad meel ka midow marka sidaas darteed waxaan iri aniga hantida ay dambeysay daawada la iga gado daawadii baa la iga gaday 2 bilood markaan daawadii isticmaalay hami baa yeeshay dareenkayga soo noqday bishii saddexaad daawadeed markaan u imaaday waxaan iri meeshiina haligu celiyo waan isqorayaa shaqadiina baan iri sidii baan liigu celiyay shaqadeena waan isqoray hadda company-ga waxaan ka shaqeeyaa muddo 5 bilood baan ka shaqeeyaa oo bishaan ay igu 6 bilood baan company-ga saas ugu shaqeeyaa ma sha Allah shaqa abuurkana waan ka helay company-ga hadda alxamdulillah درجوين بالجلا درجوين كسبان هذا كمريا درجوين في عم بان كمريا الحمد لله حق نولا شيء إسبدل بان قسمي مركه كمبني جاس حق نقالة يو حق عفمات قف كدونه ونلوح سو حريري كرا ونو إيمان كرا